qisadan waxay dhex martay wiil iyo hooyadiis waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. Haweenkii ciida ayaa nin iyo xaaskiisa oo wada socdo waxay soo galeen meel lagu iibiyo dahabka. Gadaashood waxaa socotay ninka hooyadiis oo wada cunugiisa yarka. Kadib ninkii xaaskiisa ayaa waxa ay qaadatay dahab fara badan. Kadib ninkeedii ayaa ku dhahay ninkii wax iibinayay, waa imisa lacagta? Ninkii dahabka iibinayay baa ku yiri, waa 20,100 riyaal. Markaasuu ninkii wuxuu eegay miisaankii, wuxuu arkay 20,000 oo riyaal oo kaliya. Kadib ninkii dahabka iibinayay ayuu weydiiyey, xaguu ka imaaday boqolkan? Ninkii dahabka iibinayay baa yiri, hooyada ayaa qaadatay faraanti qiimihiisa uu yahay 100 riyaal. Halkaas ayuuna ka yimid 100 riyaal. Kadib ninkii hooyadiis ayuu ka soo qaaday dahabkii, wuxuuna ku soo tuuray ninkii dahabka iibinayay. Hooyadii ayuuna u soo jeesay, wuxuuna ku yiri, dadka da'da ah oo sidaada oo kale ah looguma talagelin dahab. Hooyadiis ayaa oysay markii ay maqashay hadalkaas, waxayna aaday gaarigii. Kadib xaaskiisii ayaa ku tiri, maxaa samaysay? Waxaa laga yaabaa hadda kadib in aysan ku qaadin cunugaaga. Waxaabad u moodaa hooyadiis in ay agtooda ka tahay shaqaale. Ninkii ayay lacagta dahabka siiyeen, dabadeedna waxay soo aadeen gaarigii. Hooyadiis ayuuna ku yiri, qaado faraantigan haddii aad doonayso. Hooyadiis ayaa ku tiri, maya wallaahi ma doonayo faraanti, kaliya waxaan doonaya in aan farxo sida ay dadka u farxayaan oo kale maalinta ciida. Laakiin waxaa dishay farxadeeda. Ilaahay ha kuu dambi dhaafo wiilkayga. Sidaa ogeyd asaga oo la dhaqmay ayaa haddana alla dambi dhaaf weydiinaysaa. Arrintii waxaa laga soo wareegtay muddo 6 bilood ah. Wiilku waxa uu qaadan jiray kaniiniyo badan oo si xun u saameeya caafimaadkiisa. Dabadeed hooyadiis ayaa u soo gashay baqdin ay ka baqayso inuu isticmaalo daawooyinkaas iyo jacaylka xad-dhaafka ah ee uu qabto. Waxayna ka tuurtay daawooyinkii oo idil. Dabadeed wiilkii ayaa aad u xanaaqay. Hooyadiis ayuuna gurigii ka eriyay. Markaasay gurigii ka soo tagtay ayadoo oranayso, Ilaahay ha kuu dambi dhaafo wiilkaygiyo. 2 sano markii ay hooyadiis guriga ka sii maqneed, hadalkeediina uu go'ay, ayaa wiilkii waxaa ku dhacay cudur, waxaana la dhigay isbitaalka. Muddo ayuuna ku jiray isbitaalka, kadibna waxaa dib loogu soo celiyey gurigiisa. Cudurkii hayayna ayaa ka sii daray, wuxuuna halkaas ku waayay shaqadiisa iyo gurigiisa quruxda badnaa ee uu hooyadiis ka soo eriyay. Waxaana lagu yeeshay deen fara badan. Maalin maalmaha ka mid ah asaga oo fiirsanaya TV-ga ayaa waxa uu arkay sheekh ka hadlaya oo ixsaanfalka waalidiinta iyo xiriirinta qaraabada. Sheekhii uu daawanayay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa, haddii aad u ixsaanfasho waalidiintaada waxaa kuu barakoobaya irsaaqada, waxaa kaa fiidmaya kurba kasta oo ku hayso, wax kasta oo aad ku haminaysidna waad helaysaa. Markaasuu ninkii ka soo laabtay qaladkiisa, wuxuuna ogaaday wax kasta oo uu ku dhacay inay sabab u yihiin sidii foosha xumeed ee uu hooyadiis ula dhaqmay. Markaas ayuu si dhaqso leh ku kacay, wuxuuna raadiyey hooyadiis ilaa uu ka soo helay ayada oo degan guri yar. Wuxuuna arkay hooyadiis oo tuugsanaysa oo fadhisa guri hoostiisa. Waxayna ku nooleed ama ay cuni jirtay sadaqada ay siin jireen dadka wanaagsan. Dabadeed waxa uu isku tuuray jilbaha hooyadiis asaga oo aad u oonayo ilaa ay hooyadiis la oysay. Dabadeed wuxuu ka codsaday inay cafiso. Ilaan waa hooye, cafinta wax ku dhaama ma jiro ilaa Allihii ina abuuray mooyee. Way cafisay, kadibna wuxuu u soo kaxeeyey gurigii. Dabadeed markii uu hooyadiis u baarinimo sameeyey, wuxuu ka caafimaaday dhammaan wixii cudur ahaa ee hayay. Wuxuu dib u helay shaqo fiican. Waxay u guureen guri aad u qurux badan. Wuxuu iska dhiibay dhammaan wixii dayn ahaa ee lagu lahaa. Waxaasoo dhanna waxay ku dhaceen raali ahaanshaha hooyadiis iyo ducadeeda. Halkaas ayay ku eg tahay qisadeena, taasoo ka hadlaysay ixsaanfalka hooyada. Waxaad ogaataa hooyadu inay tahay waddo fudud ee ku geynaysa janno. U ixsaanfal hooyada intuusan mowdku ku haleelin. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe taabo, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe. mahadsanid. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا